kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyey xaalka magaalada Muqdisho oo weli kacsan, weerar qaraxyo ku bilowday oo xalay lagu weeraray mid kamid ah hoteelada ay degaan siyaasiyiinta caanka ah iyo Al-Shabaab oo muddo ka badan 10 saacadood ka dhex dagaalamayay hoteelka. ciidamada Haramcad iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee Alpha Group oo iskaashanaya oo ugu dambeyn soo afjaray weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Xayaat iyo dadkii ugu badnaa oo hadda la soo badbaadiyay. siyaasiyiin, taliyaal ciidan, ganacsato iyo dad shacab ah oo ku dhintay kuna dhaawacmay weerarka iyo xogtii ugu dambeysay ee weerarkii xalay ayaan idin soo gudbin doonaa. qodobada kale waxaa kamid ah tiro hoobiyaal oo xalay lagu garaacay xarun muhiim ah oo ay leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya, kala carar iyo khasaare uu sababay weerarkaasi iyo ammaanka magaalada caasimadda oo laga dayrinayo, iyo kulankii baarlamaanka ee maanta ee la doonayay in lagu dhaariyo madaxweynihii hore Farmaajo oo la baajiyay kadib markii amniga magaalada Muqdisho uu isbeddel lama filaan ku yimid. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana Sabti 20 bisha 8 Agoosto sanada 2022. barnaamijkan si sheergareeya oo la sii wadaaga saaxiibadiina kale idinkugu jira baraha bulshada. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyay weerarkii qaraxyada ahaa ee xalayto markaasi lagu weeraray mid kamid ah hoteelada ugu caansan ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya marka ku yaala. dagaalameel ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weli markaasi si goosgoos ah kaga dhex dagaalamaya hoteelka la yiraahdo Xayaat ee magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan muddo ka badan 10 saacadood oo xiriir ah, waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho dhaawac badan oo markaa weerarkaas Al-Shabaab xalayto ay ku qaadeen hoteelkaas uu sababay. Al-Shabaab ayaa hoteelka ku yaala agaarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho waxa ay weerar ku bilowday qaraxyo baabuur ku qaadeen abaara 7 habeenimo ee xalayto oo daqiiqado markaasi ay weheliyaan, waxaana kadib u suurto gashay Al-Shabaab inay halkaasi gudaha u galaan oo ay dhaafaan ilaaladii hoteelka kadib markii ay ku asqeeyeen qaraxyo waaweyn. waxaa markaasi soo baxaya iminka oo idin la hadlayno xogta khasaarihii ugu horeeyay ee la shaaciyo, waxaana la xaqiijiyay dhimashada ugu yaraan 10 qof oo kale oo markaa weerarka ku dhimatay, iyada oo dhaawaca la sheegayo in markaasi intaas uu ka badan yahay. haddaba weerarka ayaa lagu soo waramayaa in markaasi uu sababay khasaare markaa soo gaaray dad caan ah. dadka hoteelka ku dhintay magacyadooda ilaa iyo hadda la helay waxaa kamid ah ganacsade la yiraahdo Cabdiraxmaan Xasan Iimaan, Yuusuf Mahad Barrow oo markaasi isaguna aad loo yaqaano oo kamid ah dadka qurba joogta ah, Ibraahim Raagin la yiraahdo oo aad loo yaqaano, Cabdulaahi Maxamed Sheekh Aadan, Xasan Maxamuud Faarax iyo sidoo kale qaar kale ayaa la sheegay in ay weerarkaasi ku dhinteen sida xogihii ugu dambeeyay ay sheegayaan. dadka ku dhaawacmay waxaa sidoo kale kamid ah caanka ah ee siyaasiyiinta waa dadka kale ee caanka ah ee ku dhaawacmay saraakiisha ciidamada. waxaa markaasi ugu weyn taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Muxiidiin Warbac Shadoor oo kamid ahaa dadkii markaasi u soo gurmaday hoteelka, isaga iyo ilaalo kale oo la socday ayaa qarax lagu beegsaday sida xogtu sheegayso, waxaan isku qarxiyay qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray. sidoo kale dadka ku dhaawacmay saraakiisha ah weerarkaas ku dhaawacmay waxaa kamid ah taliye markaas lagu magacaabo Mahad Korow oo isagu haysta qaybta weliyow cadde ee booliiska ee gobolka Banaadir. gudaha hoteelka ayaa waxaa markaasi dagaal culus uu ku dhex maray ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab xubno markaasi ka tirsan oo tiradooda aan si rasmi ah markaasi loo xaqiijin karin. xalayto xilli dambe ayay dadka markaasi deegaanka waxa ay maqlayeen rasaas iyo weliba sidoo kale qaraxyo ka dhacaya gudaha hoteelka oo ay markaasi isku hayeen amaba isku farasaarayeen ciidamada ammaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kooxdii markaa weerarka soo qaaday. dhinaca kale dadkii ugu badnaa ayaa markaasi saaka laga soo badbaadiyay hoteelka Xayaat ee magaalada Muqdisho oo ay markaasi ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya soo badbaadiyeen, maadaama weerarku uu noqday mid markaasi gabawsi ahaa oo xilli dambe soo gaaray. sidoo kalena la sheegay in rasaasta ay ka dhamaatay kooxihii Al-Shabaab markaasi ka tirsanaa dagaalka halkaasi ku soo qaaday. haddaba dhacdooyinka xanuunka badan ee xalayto halkaasi laga diiwaan geliyay ayaa waxaa qayb ka ah inay markaasi kala lumeen oo ay iswaayeen hooyo iyo sidoo kale caruur ay dhashay oo halkaasi ku sugnaa.
xogaha laga helay arrintaas ayaa waxay sheegayaan in carruurta oo ilaa iyo tiro 3 gaaraysay iyo hooyadood oo halkaasi deganaa ay markaasi iswaayeen markii qaraxyadu ay halkaa ka bilowdeen. waxaa la tilmaamay in carruurta ay iyagu galeen suuli markaasi halkaa ku yaalay oo isku soo xireen intii weerarku uu markaasi soconayay, walow xalayto mar dambe carruurta la helay iyaga iyo sidoo kale hooyadoodna markaasi dib ay u midoobeen. waana sheekooyinka naxdinta leh ee laga wariyey weerarkii xalayto al-shabaab halkaasi ay ku qaadeen. sidoo kale waxaa jira dad kale oo iyaguna ku go'doomay meel aanan hoteelka ahayn oo markaasi u dhowaa hoteelka weerarka lagu soo qaaday. maqaaxiyo ka agdhowaa hoteelka oo ay dad markaasi ku shaahayeen islamarkaana ay u ahayd maalin jimco ah ayaa sidoo kale go'doon galay kadib markii ay waayeen meel ay ka baxaan maadaama jihooyinka ay isaga darsoomeen oo qaraxyo xoog leh ay halkaasi ka dhaceen. sidoo kalena markii dambe rasaas ay halkaasi ka bilaabatay ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliyana halkaasi ay soo gaareen. markii weerarku uu dhacay islamarkaana la ogaaday in dagaalamyaal ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen hoteelka, waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska gaarka u tababaran ee Haram Cad la yiraahdo, iyagoo halkaasi ka bilaabay howlgallo iyo weliba sidoo kale dhaqdhaqaaqyo kala duwan. waxaana la tilmaamay in ay ku guuldareysteen in xalayto waqti hore Haram Cad ay soo afjaraan dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab. waxaa markii dambe la sheegay in weerarka iyo howlgalka ay ku soo biireen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Alpha Group la yiraahdo, kuwaas oo iyagu markaasi halkaas ka bilaabay in ay soo afjaraan al-shabaabkii weerarka soo qaaday. waxyaabaha markaasi adeegsanayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Alpha Group aan horey loo arag ayaa waxaa ka mid ahaa in ay adeegsadeen qalab markaasi wiish ah oo casri ah, islamarkaana ciidamada inta lagu qaado hoteelka kor markaasi looga soo gelinayo, maadaama hoteelka qaybaha hoose aan laga geli karin oo al-shabaabka halkaasi ku jira ay dadka halkaas madaxa kaga tooganayaan. si kastaba waxaa hadda taliska Haram Cad iyo sidoo kale taliska booliiska Soomaaliya ay shaaciyeen in markaasi la soo afjaray weerarkii al-shabaab ay halkaasi ku soo qaadeen. sidoo kalena warbaahinta si rasmi ah loogu soo bandhigi doono khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkaas, maadaama weerarku uu ahaa mid markaas saacado badan qaadanayay islamarkaana khasaaraha uu yahay markaa mid aad u fara badan. cisbitaalada magaalada Muqdisho ayaa la gaarsiiyey dhaawacyadii ugu badnaa, iyada oo markaasi cisbitaalada uu ka mid yahay Digfaar la geeyey siyaasiyiinta iyo sidoo kale saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka ee ku waxyeeloobay weerarkaasi. haddaba wararka la xiriira khasaaraha soo kordha iyo haddii ay waxyaabo kale markaasi ku soo kordhaan weerarkaasi, wararkan kale soo aadan ayaad ku daawan doontaan insha Allah. markaana degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir wararka laga helayo ayaa waxay sheegayaan in xalayto tiro hoobiyaal ay ku dhaceen nawaaxiga iskool buluusiya oo ah meel muhiim u ah dowladda federaalka Soomaaliya. dadka degan xaafadahaas ee hoobiyaashu ku dhaceen ayaa waxay sheegeen in ilaa iyo 5 madfac ay ku soo dhaceen halkaas, kuwaas oo waxyeello kala duwan gaarsiiyay dadka. dad isku qoys ah ayaa ka mid ah dadka waxyeelladu ay soo gaartay maadaama hoobiyuhu uu ku dhacay gurigooda, sida dadka deegaanku ay markaasi xaqiijiyeen. ku dhowaad 10 ruux ayaa ku dhaawacmay, waxaana dadkaasi dhaawacyadooda markaasi daadgureeyey ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee halkaasi ka agdhowaa. ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa hadda waxa uu yahay mid markaasi laga dayrinayo maadaama khalkhal xoog leh uu ku yimid. ugu dambeyntiina guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xildhibaanada u diray fariin loogu sheegayo inuu baaqday kulankii maanta loo ballansanaa, kaasi oo la doonayay in lagu dhaariyo madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo. guddoonku ma shaacin sababta ka dambaysa in dib loo dhigo kulanka golaha, balse waxaa qoraalka lagu xusay in sababo ay jiraan, waxaana kulankaasi markaa loo bedelay maalinta Axadda ah ee berri ku beegan oo 21 Agoosto bisha ay tahay. inkastoo guddoonku uusan markaasi sababta rasmiga ah ee markaa carabaabin, haddana kulanka ayaa la fahamsan yahay in loo baajiyey isbeddelka lama filaanka ah ee ku yimid amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho, maadaama xalayto weerar toos ah uu ka soconayo hoteelka Xayaad oo ku yaala isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaasi oo dagaalyahano hubaysan ay gudaha u galeen islamarkaana ay ka dagaalamayeen muddo markaasi 10 saacadood ee ka badan. taas ayaana keentay in markaa dib loo dhigo oo la baajiyo kulankii ay lahaayeen amaba ay doonayeen inay isugu yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya si markaasi ay ugu dhaariyaan Farmaajo xildhibaan abadi ah noqonaya, balse berri ayuu kulankaasi u dhacay.
qodobkaas ayaa ugu dambeeyey intaaynu mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.